waxaynu maanta kulan la yeelanay wareysiga waynu kaga wareysanayno arrimo badan qoraaga weyn mutacallimka ahna qurbi jooga ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland aqoonyahan Maxamed Cabdillaahi Hofsiye ku soo dhawow wareysi gaar ah. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waan ku soo dhawahay insha Allah ta'ala. waxay dhawaan bay markii aad u timid dalka adoo in badan ku maqnaa dalka dibadiisa marka waran dalka isbedelka ka dhacay haday tahay horumarka ay dadku sameeyeen haday tahay xagga dhaqaalaha golay su'aashaasi waa su'aal aad u ballaaran dalka guud ahaan yani Soomaaliland marka laga hadlayo dhaqaalahaan iyo siyaasadahaan iyo yani waxyaabo badan baa maxaa kulay laga hadlaya marka waxyaabo badan oo la bogaadin karana way jiraan waxyaabo badan oo dhaliilayna way jiraan marka intaas ayaan ku koobi lahaa maartay wixii wadciga guud aan ku arkay magaalada Boorama waxaad aragtay in dadkii imika ay dhisayaan guryo badan horumar badan ka jiro horumarka Boorama ka waraysi warta runtii wuu fiican yahay horumarka Boorama waxa weeye sidii wadankii dadku oran jiray Soomaaliya sidii uu burburay waxa weeye qolo walba iyo reer walba meeshiisii uu tagay marka khasab waxa ku aad moortay in dhulkiisii iyo magaalooyinkiisii inuu dhisto marka kuwaas bay kala mid tahay Boorama in ay fido oo dhismayaashu ay aad u kordhaan horumarna sidaas ay ugu tallaabto bal waxaad markale noo warantaa adoo siyaasadda inta badan aad ugu dhuundaloola aragtida ku aadan ama ujeedada safarkii madaxweynaha Soomaaliland ee dhulka ahaa ee uu ku mariyay guud ahaan gobolada Soomaaliland gaar ahaan uu ka bilaabay gobolada galbeedka Soomaaliland horta kulay waxa weeye dawlad ahaan ama madaxweyne ahaan safarka ka soo bilaabay gobolada galbeedka guud ahaan uu ku marayo gobolada Soomaaliland waxa weeye waa shaqo iyo kormeer يعني dalka uu mas'uulka ka yahay uu ugu kuurgalayo xaaladda nololeed iyo wixii tabashaa oo kulleeyba uu in isku taago uu ugu talagalay marka kulleey anigu aragtideeda waxa weeye mabda ahaan ama policy ahaan waa bogaadinaya moogtahay socodkaas waliba dhulka ah oo madaxweynuhu ka bilaabay gobolada galbeedka Awdal iyo Salal deetana halka waxyaabta ugu gudbay ilaa Berbera kusii joogay ilaa Ceergaaw yani aad baan soo dhaweynayaa waxyaabo hirgalay oo yani intii uu isagu madaxweynaha dalka ka noqday uu hirgeliyay sida wadada isku xidha Boorama iyo Dila oo kale yani wax aad loo bogaadiyo weeyay runtii aan horena u jiri jirin kurtiina aan jirin markii uu arkay dadku inay wax qabsanayaan isaguna uu ku taageeray dhamaysna tiray waa wax yani dhacay oo practical oo lagu bogaadin karo wuu furay wadada yani maartay waa waajibaadkii uu gutay iyo wad mahadsan tahay iyo in lagu hambaliyeeyo uu mudan yahay wuxuu kaloo dhagaxyo dhigay wadada kala bayd iyo Dila iyo wadada Boorama ilaa Looyacado iyagana waxaan leenahay mabda ahaan waan soo dhaweynaynaa dhagax dhiga laakiin waxa kulay loo jiray the end justifies the means yani dhamaystirka ayaa macnayn doona yani iyadana hambaliyadeeda iyo bogaadinteeda laakiin waa wax la soo dhaweyn karo waxa iyadana kulay wax aad loo bogaadiyaa oo su'aalo badanina ay ka jireen dekada loo haya oo dhagax dhigay ayaa iyadu lafteedu mudan yani dhagax dhigaas in la bogaadiyo laakiin iyaduna noqonaysa sidii uga fulaan mana oran baan malaynayaa aniga sameynaya laakiin waxa weeye hal samaysto baa meesha ku taala su'aasha ugu badnayd ee la isweydiinayna waxa ahayd maartay dawladda Soomaaliland ma ogolay iyo way ogoshahay tii unbu meesha ka saaray oo in ay diyaar u yihiin oo ogol yahay baa meesha iyaduna ku jirta marka guud ahaan marka la isku tarbiyo waxa weeye safar kulley hawlihiisa kamida oo shaqadiisa kamida ayuu yahay waana soo dhaweynaynaa sida uu safarkaasi uu hirgalay ama uu gobolada galbeedka uga dhamaado inagoo wali ku guda jirna wareysigii gaarka ah ayaan kula yeelinayn Maxamed bal waxaad markale nooga warantaa fikirkaaga ku aadan qaxootigii laga soo reeyay dalka Djibouti ee la sheegay in uu wado wasiirka wasaaradda dibadejinta Soomaaliland bal fikirkaaga ku aadan arintaasi bal wax nooga waran runtii waa su'aal aad u wanaagsan
arrintaas qaxootiga iyo Djibouti horta anigu kulli shakhsiyan muxuu aragtayda anigu ma qabo yani qaxooti Somaliland oo muxuu ahaa Djibouti ay hayso muxuu ahaa kulli anigu aragti ahaan waxaan waafaqsanahay oo yani maartay jira uma arko qaxooti haddii uu jiro Somaliland ka maqan qaxootigaasi wuxuu ku maqan yahay dalka Ethiopia dalka Ethiopia runtii aad bay u soo dhaweysay qaxootigaas Somaliland oo waqtigii muxuu ahaa dagaaladii sokeeye iyo muxuu ahaa meesha ay ka jireen dadkii muxuu ahaa yani xabadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii muxuu ahaa dadka lagu burburiyay wixii ka yaacay Ethiopia joogan laakiin waxyaabaha wuu jiray isaga laftiisu laakiin dad qaxootiyo Djibouti galay anigu kullayba ma ogi waxaan arkay runtii in aan iska arrin muxuu ahaa haddii qaxooti jiro qaxootiyadu meelaha ay kala joogaan ay ugu muhiimsan yihiin in muxuu ahaa lagu dib looga soo celiyo oo la dejiyo dhul baa iska muxuu ahaa weli bannaan sida dilo oo kale way bannaan tahay dadkii wuu ka maqan yahay guryihii muxuu ahaa way dunsan yihiin wixii way wada muuqdaan yani calaamad ahaan iyo markhaati ahaanba wax muxuu ahaa indhaha laga dulalin karo maaha dadkeediina inay qaxooti noqdeen oo Ethiopia jiraan waa la ogyahay way habooneyd moogta in la soo celiyo dadka dib loo dejiyo guryaha loo dhiso muxuu ahaa rehabilitation lagu sameeyo muxuu ahaa arrintaas laakiin muxuu ahaa dee waqtiguna aad buu dheeryahay waa dhowr iyo 20 sano marka qaxootigaas anigu waxaan u arkaa wax muxuu ahaa socdaalkii madaxweynuhuna dee imika markuu tegay muxuu ahaa ilaa Saylac iyo muxuu ahaa Looyacdo iyo ilaa Luqaya markuu maray wuxuu ka soo qaaday oo arrintaas muxuu ahaa qaxooti ahaan oo carabka ku dhuftayna meesha kama muuqan corona muxuu ahaa uma sheegin oo qaxooti baa Djibouti naga maqan ma oran sida awgeed muxuu ahaa sida muxuu ahaa isagaba aanay waxba uga soo bixin haddii aan wax qarsooni jirin ma aragna muxuu ahaa wax qaxootiyo muxuu ahaa hadda Djibouti laga soo raro dib muxuu ahaa Luqaya iyo Saylac gaar u ah ma runtii ma qabaan inta badan waxa jira siyaasad baa la leeyahay siyaasad hoos oo ka dambaysa jirta arrintan oo ka dhaxaysa madaxweynayaasha Djibouti iyo Somaliland wallahi anigu ma qabo muxuu ahaa yani siyaasad hoos oo يعني مدحونا Djibouti مدحونا Somaliland بكره حساب أنت أسكت هو ويموقن لحي لكن كل وزير كتب تجنت من بنك مقلنا أنت UNHCR مرك دين على غيره مرك UNHCR السوق هذا هيدا قحوتي جاي عالم فوق بالسنة جمعت وما كان حس وحي لغو محوها شعبية أما ما جاي لغوها هو محوها إن وأرين مرك شرتوي لكن سيدا وشرتو وحوي كلا بحثا محو واحد سياسات بان سوى قحوتي الرسمي أو نبع أو صوفي وأنا أقول من السياسات أيضا لفتي وأتي محوها UNHCR نوي أبتهي محوها مدحونا سومالنا نو أوجهاي مدحونا Djibouti نو أوجهاي إلهي نو أوجهاي أنا قلنا ونوجنا موقت قحوتي عين كاسو Djibouti إما كديب لوجسو فرو محوها لسود الشيء أين أنا تشيله لكن تدخل محوها الدجان هو وضع الشيء أو إسدالي أو محوها أب إيو محوها سيدي يقعد يسكو محوها وحي باهيه بشرته محوها إن وحلاقه وضع قبطان مضان ويه نوتاسوان محوها رسوله هدي وحلاقه بانيو لكن أرنت إن السياسة ديو محوها قحوتي تبلو سودتيني لقدقو ما قرح بدنا قحوتي هدو تشيرو دي هالكي وتشيري لقو ما مقعابين لما أبارين أو محوها حقا لقا مسوق قبان حقا لقا مسوق رأي أما إن محوها ديب وحلاقه قبطان مددكي لسوعلي دي ماشي كمان مقط marka ma oran karo maxaa labadaas ayay maxaa madaxweynaha ay wax ka dhaxeeyaan ma oran karo maxaad ugu baaqaysaa wasiirka iyo dadka fikirkaasi aaminsan wasiirka runtii kalidii ma aha wasiirro badan oo waxad moodaa waxa jira dawladda Axmed Maxamuud Siiraayo kamida oo aad moodo inay qabyaalada aad u horboodayaan ayaa maxaa ku leeyahay marka wasiirku de qorshaha maxaa noocaasa dad maxaa kuwaas baan anigu kulay u arkaa maartay wasiirku inuu maxaa daba joogo wuxuu uga jeedo iyo maxaa mana rabo maxaa inaan ku sii dheeraado arintaas xataa wasiirka laftiisa
laakiin qorshuhu hadduu jiro dee qorshe muxuu ahaa Somaliland laga wada ogyahay oo dadku ku wada qanacsan yahay ma horena waa looga hadlay odayaal baa ka hadlay muxuu ahaa rag oqaal iyo salaadiin baa ka hadashay muxuu ahaa dee wixii macquul ah ee dadku ay wada arkayaan waa muxuu ahaa waa diyaar baa loo yahay wixii aan macquul ahayn muxuu ahaa dee kullay dadku ma qaadi karaan baan filaya anagoo waraysigeena ku jirna maxamed bal waxaad markaa nooga warantaa arrimahan maalmihii u dambeeyay dhex socday warbaahinta ee sheegayay xukunkii lagu riday cawar xareed iyo qaxiye iyo weliba xukumo kale oo xadhig ah oo muddo dheer qaadanaya oo lagu riday dhammaan ciddii ka dambeysay dilalkaasi foosh xumaay ka dhacay Soomaal iyo jidkii u dhaxeeya dilay iyo Gabiley bal inta nooga waran arrintaas runtii dee warbaahinta baan qoraal ahaan ugu aragnay laakiin video ahaan iyo telefishinadu midna muxuu lagama soo daynin in xukunkaasi dhacay laakiin waxaan qaadanaynaa okay cadaalad raagtay oo aad looga seexday ba ha ahaatay laakiin dee talaabo muxuu ahaa hore loo qaaday baanu arkaa waxaase muhiima dee waxa weeye wixii ma fulin yani arrinta muxuu ahaa nimankaas loo haystayna arrin yar oo muxuu ahaa fudud ma aha waxa maxaan maartay cidi ka wada hadlaysana ma aha waxay ahayd dawlad ahaan in lagu dhaqsado muxuu ahaa arrintaasna haddii xukunkaasi imika u dhacayna waxa dadku aqbalaya oo markaas muxuu ahaa u joogsanaya in wixii xukunkii la fuliyo oo muxuu ahaa nimankii halkii ay wax ku dileen iyagana inta la keeno lagu dilo dilka fulinta dilkaasi uu dhaco sidaas un bay dadku ku qancayaan laakiin waa la xukumay dee jeelka iskaga jirayaan sidii qaar horeba loo xukumay ay jeelka ugu jiraan intaas muxuu ahaa marka taasina sidaas ayaan muxuu ahaa u arkaa aragtidaydu waa sidaas maxamed haddiiba ay tahay xukunkaasi wax jira isla markaasina ay dawladdu rabto inay fuliso ka maxamed ahaan ama ka ummadda aad mataliisa ahaan siyadoo aragtaa ma soo dhaweyn kartaa mise waa wax aad sileeda ma dhici karayso haddii uu fulo waxaan u arkaa tallaabo dhinaca cadaaladda loo qaado laakiin haddaanu fulin waa un ilaa xadka imika uu joogo muxuu ahaa weli wax cadaaladdii ma dhammaystirno aadna way u raagtay cadaaladda raagtaana waxaa dee in layska indhatiray unbaa loo arkaa dhowr sano muxuu ahaa ayaan dhowr sano weeyey inta muxuu hadda laga joogo marka sidii markii hore loo maamulay iyo muxuu ahaa cadaymihii iyo wixii muxuu ahaa marka hore dadka loo sheegayay iyo magacyadii dadka loo sheegay sidaad u xasuustaanba dee waxa weeye sheeko dheer bay arrintaasi u baahan tahay dilkan muxuu ahaa kala baydh iyo muxuu ahaa wuxuu dhacay muxuu ahaa 2009 buu dhacay muxuu ahaa bishii July 12 Soomaal muxuu ahaa December yani sanadun ka dambeeyay marka يعني وحيابات رقم كليسو جيجي وحوي عدالة آد منها لوجا جابي أو هاكتي لكن واحد ما يستري أو ضدك كسوت شوف سنة أما يقبل كران إن ديلكي لفولي أنت أسمع بانها. وقطمنتي معلمي يودن بي وحاس حافظة ده سعودي أريما بدن أو ده سعودة وكو أدن حسوق سيدا يشجعن أو أي لا يري خبرة عالمية أو باري ضل أي شجعن لجو حسوقي إن أو رئيس المال أنا لجو حسوقي رجيسة أنت يوم حاط كام ميزان كغبطة في كذا أنت يعني هرجيسة أي خبرة الله يري حبالها لفها لجسوا فقي يعني وحوي ده أنا جاي أتورط كلي حسوق ودعي موقتها يا وصومالي وابيبر بفتجيب جيبه حسوق ودعي ووحي شراء محوها تاريخ كل شراء أما مرخاتي مدوننا إن ده حلقة لليو أما لنقلت جرايو محوها للديدو وقاب وقاب موقتها يعني ده ما كان وحي شيء أنا يا كل عين لكن ذيك قد عين وتأسيس أشياء سينما متكلوا يعني جوابتي ذا يبلعنته وحصل محوها لياب لرناته وأوضح له ليابا وحوي بن آدم خدي اسكو قلده ما حتى إن اسكو قرابة وناس ووحي محوها قلد قف كدعي يعني وح جوبنيمود واحد تاعي إن لقى قرابة لكن إن لسكت لقى مريض ولا يستول مريض ماشي ما تعرف أرنت أجي ودين الساعات محوها وحوي أرنتي كسر سنة محوها يعني حسوق لنا عقولة عوضة يو أسنم بالغ شيء كيني يو بهين تدحيا عي مالنا دور محوها لنا عيب بدن بكهل وحرمتي آدو لي يابنا هاي ده وحيد دعي وأنا لقارن كرين وتاريخ المخاتكتها إن ده لقى قصدا عمل استمر يا ماشي مطال قبل مدن واحد كل شيء إن لسكوب قروحي لسكوب كيستي هذا أنا بقول قرية إن محوها لمكة لصوفق إن لوجي استحسوا لكن مكة هذا الشيء يو كشكين يو أسلم أكمل تاعي أو كو يعني مهمة دلتاتها إن قرامي وأي حقيقة صدان قالت كي أي سميين يدتك إلاين
inay xaqiiqsadaan walaga maarmaan sidaas un baa muxuu Soomaaliland ku dhismaysaa midda labaad rag baa ka hadlayo muxuu maalin dhawadan maqlay lahaayeen yani SNM cidii wax ka sheegta yani kii dhintay iyo kii noolba yani maartay waan daba galeynaa oo la saamix maayo hadii Soomaaliland sida kuma dhismayso qaranna ku noqon mayso laakiin Soomaaliland waxay qaran ku noqonaysaa oo ku dhismaysaa Soomaalilandnimo iyo muxuu midnimo iyo laakiin SNM oo dadkii aan xataa ka tirsanayn de sanka laga geliyo lagu qasba de ma noqonayso muxuu ahaa oo khasab ku qaado leeyahay in la isku garaaba waa meesha muxuu ahaa wixii laga wada hadlaa waa meesheeda imarsi laakiin in khasab ku qaado oo lagu yiraahdo muxuu ahaa xataa sidan maqlayay maalin dhaweyta muxuu ahaa de manhaj bal laga dhigo muxuu ahaa iskuulada lagu dhigo de dad badan baan ogolayn oo aan SNM ka tirsanayn run ahaantii SNM run ahaantii de waxay siyaasiyan haddaan dib ugu yar noqdo siyaasad ahaan dadkii siyaasadda hogaaminayay oo Axmed Siiraayi oo madaxweyne maanta dalka uu ka mid ahaa waxa jirtay in sidii uu ku hogaaminayay in xataa ay isku hayeen nimankii askarta ahaa ee muxuu dagaalka waday inay muxuu aad ugu kala bedelayeen waxaan xasuustaa yani markii SNM tabala dhisay oo gudoomiyaha uu ka ahaa Axmed Siiraayi wuxuu isku dayay inuu ka saaro inuu wuxuu reer kaliya ku koobnaado الله نحرسته واحد استعملوها يوسف شيخ إبراهيم قراب ده أصلاً تكمل بوها وقال دي سعودي قال له سمي سعودي قمر كتشوغين وكمل بوها هاد مركي إثيوبيا تجينا كمل بوها أحمد زيراني وحى عنك يوسف شيخ إبراهيم قراب الله نحرسته أصلا شرحي قدوميها قدي قفلنت يا أصلاً هل عض على جهلي نكلا لا اسمه آدم دول أيا هل عض كجهلي اسمه آدم دول نشري طبعاً عضو هلي محوها يوسف شيخ إبراهيم قراب الله نحرسته أنا عفري طبعاً عضو هلي ده كم يطبوها سيراي أساس وجود ذلك إنه محوها قبيل كسر محوها SNM قبيل كإنه كسر أساس وجود ذلك نهانتي لكن وح كهري يمد وديدنا ومحوها لبتك يعني وحوي إنه مك أسكرتها عيدا ما ضعها محوها يعني دقائق SNM تفوقاميني لما كاس أي أنت وخربي محوها دتكون خلت كم وضع الحر نهانتي dad gaar baa iskale ilaa imika yoomna hada saraakiisha SNM hogaaminaysa qaar baa de sidaan ma hadaba ku sheegay muxuu waxay ku afadagayeen in xataa kuwii dadkii dhintay baa la saamaxay kulli wadii la saamaxay waayo ama la isku tanaasuli waayo ama muxuu waxa la isku qiri waayo de muxuu khaladka qofka gashay aad u qiri weydo de wanaaga aad sugaysay muxuu adigu wax ku doonaysaa de xoog buu noqonayaa de xoogna wax ma xalilay xoog baa ka hor iman saas ay aniga ila tahay marka xasuuqaas wuu dhacay waxa marxaatimadoona weey muxuu ahaa dadkii wixii ka soo hareena waa kuwii hadaan sheegay in Itoobiya jiraan wali cid ka daba tagtay oo soo celisay ma jirto iyadoo nugsunahay in oo SNM iyo dadkii Hargeysa deganaa xasuuq loo geystay oo aad sheegtay inaanay ahayn wax la qarin karo sidoo kale waxa jira xasuuq loo geystay dadka degan gobolada galbeedka Soomaaliland iyadoo xasuuq sidoo kale loo geystay marka laga soo bilaabo Gabiley ilaa loo yacadeynta dhaxaysa xasuuqaasi inta badan waxay ku soo koobaan dadku inay boorame iyo dila ka dhacay fikirka aduu fikirka duwan ma qabtaa fikirka duwan baa qabaa xasuuqu waxaan garanayaa inuu hebel u garanaya loo yacado ragii guryaha hortooda laga qaado oo milka loo oran jiray muxuu ahaa Hodoon Maxamed Xasan Hodoon ninkii kamid ahaa oo ciga barxadle oo loo oran jiray oo kamid ahaa loo yacado kaamada hortooda laga qaado meel ay jiraan lama yaqaan cidii qaadanaysan be kuwii kale muxuu ahaa yani lagu qabtay sayla iyadoo soo kale lugaya ka dhacday meel kasta ka dhacday ma haboora ma dilaw fikir kuma koobna xasuuq kuma koobna dilay boor maxaad kula dardaarmi kartaa bulshada iyo maamulka iyo xukuumadda Soomaaliland waxaan kula dardaarmay ruuxaantii horta kelmad baan dib ugu yar noqonayaa waxa weeye xasuuqu laba nooc buu ahaa markii hore muxuu ahaa dawladii siyaad barre ay meesha jirtay oo muxuu ahaa SNM-ta ay dagaalayeen muxuu ahaa xasuuq dagaalo dhinac qabiilna ka socda dhinac dawladeedna ka socda intuba way jireen kaasi mid buu ahaa oo waxa bay ahayd muxuu ahaa dagaal ama dad ay iska hor imanayeen muxuu ahaa iska caabin iyo weerar muxuu ahaa ku sugnaa laakiin kan dambe imika yani aad leedahay maalin baa jirta maalintu waa cadaan waxa weeye 4 February 1991 ayay ahayd markii SNM ay soo gashay dowladda galbeedka oo ay xasuuq ba'an oo aan loo abayeelin ay u geysatay waa 4 February 1991 taariikhdu ma qarin waxay dafiri karayso maaha taariikhdu way qiraysaa
عدي استرادة قرنا محوها ما لكن waxaan kula dardaarmaya Somaliland inay ku dhismayso in midnimo Somaliland laakiin kuma dhismayso in muxuuha SNM la wada qaato oo SNM la wada lama wada runtii kuma dhismayso xumaan bay keenis SNM muxuuha okay taariikhdeeda cid baa iska lama wada laha dadna faa'iido u ahayd dadna dhibaato u marka wax waxa ka duwan oo lagu midoobo sidii boormada loogu yeeray gogasha loogu dhigay ee muxuu wax loogu dhisay qarannimo muxuu qooyi oo Somaliland darnimo oo muxuu loo dhan yahay oo heshiis lagu yahay ayay wax ku dhismi karaan laakiin hadii kolba boog la taabto waxba ma dhismayaan colaadu ba ka kordhaysa waxana way sii xumaanayaan marka waxaan oran lahaa qolada muxuu SNM ka soo jeeda iyo muxuu ragga hadiya jeer muxuu ku adag aan wax kale inay jiraan muxuu aan ku u jeedin waxaan kula talin lahaa in ay qiraan wixii ay geysteen sida loogu qirayo wixii loo geystay markay aday sidaas yeelaan dadku meel buu isku raaci karayaa oo muxuu uu isfahmi karayaa waxayna in laga wada hadlo oo muxuu لسكعفي هلا سعفيا بل يدخل لكن ده وحي هلا وضع المولى هدي محو هدي حضارة لفقوه محو عالم كله شيء يقلفتوا ذو حي جيستين وين حلو كان عنه محو هاي قران ويقلفتوا ذا هاي هذا أوكي ده أنا مسؤول كاهن عيب معهم وقتي وقبلني محو اعتراف الذنب فضيلة محو واحد قف كشيء نقرأته ورقني وأنا قبلني لكن ما هم محو واحد قوات كيستهم محو مركب وحنا لها واحد الهشيس قال له ويا هاي هاللغو صعبه وهلقى دايو وحي لو كلا تغي intaas ayaan ma u soo jeedinaa intaasi waxay noogu dhan waraysigii aanu la yeelanaynay aqoon-yahan Maxamed Cabdilaahi Obsiye oo dhawaan ka yimid dalka